wiilka 17 jir oo u dhashay dalka Algeria ayaa waxa uu noqday nin markaasi galay booska waxa loo yaqaano in uu markaasi noqday halyeynimada dalkaasi Turkiga magaalada Istanbul kadib markii cunug yar oo ka soo dhacay ama ka soo 2 sano jir oo ka soo dhacday markaasi barakol uu qabtay iyadoo markaasi dhulka ku dhacay ninkan ayaa dhalinyarada ah oo 17 jir asagoo ah ayaa waxa la sheegay inuu ka shaqeynayay dukaan ku dhow degmada la yiraahdo Fatih ee gobolkaasi Istanbul magaalada Istanbul ay yihiin dadka markaasi carruha faraha badan haysta ee Carabta waxa la sheegay in gabadhan yar oo uu dhalay nin la yiraahdo Yusuf Maxamed iyo hooyadeed oo leedahay Leila Abdallah ay markaasi daaqada intay friend ay gabadha yar iska socotay iyadoo sheegay in aabaheedna uu maqnaa hooyadeedna ay ku mashquulsanaa cunto karin si kastaba noqotay waxa la sheegay in cunugu uu arkay gabadha yar oo markaasi soo dhacay isla markaana uu ka soo orday meel dhowr talaabo u jirtay isla markaana uu dhulka markay ka soo dhici rabtay uu qabtay Fawzi Sabat ayaa la sheegay in markaasi ay warbaahinta dalkaasi ay shaacinayso uu sameeyay ayaa la yiri wax loogu yeeray talaabadii ugu weyneed kaamarooyinka ku xiran wadooyinka iyo dhinacyadooda ayaa markaasi laga arkay muuqaalka yaab kale ee cunuga uu ku qabanayo cunugta yar ee dhulka ku soo dhacaysa aabaheed markii uu yimid ayaa la sheegay in uu siiyay 200 oo lacagta liirada ah isagoo oo maalintii ku xigtayna sameeyay markaasi alabari iyo sadaqo uu dadka xaafadda oo dhan uu qalay neef xoolo ah wararka ayaa waxay sheegayaan in dawladda dalka Turkiga iyo laamaheeda amnigu ay u aqoonsadeen cunugaasi in uu yahay markaasi halyeey